بسم الله الرحمن الرحيم شاكدان waa sheeko dhab ah oo ka dhacda mid ka mid ah tuulooyinka Soomaaliya sheekadan waxay la magac baxday haweeneyda iyo sixirka xun tuulo yar oo ku taala koonfurta Soomaaliya ayaa waxa ku nooleed haweeney la oran jiray Faadumo oo caan ku ahayd quruxdeeda iyo dabeecadeeda wanaagsan dadka tuulada ayaa jeclaa laakiin waxa jiray haweenka qaar oo Faadumo ka xumaaday sababtoo ah riyadeeda iyo guulaha Faadumo maalin maalmaha ka mid ah mid ka mid ah haweenkaas waxay tagtay nin sixroolo ah oo laga yaabo inuu ahaa nin xun oo dadka khatar gelin jiray waxay ku tiri samayso sixir keen in Faadumo ay dhibaato la kulanto si aan aniga uga sareeyo sixrooluhu wuxuu sameeyay sixir mugdi ah oo Faadumo lagaga saarayo badbaadada iyo caafimaadka saameyntu waxay noqotay mid degdeg ah Faadumo waxay bilowday in ay xanuunsato iyada oo aan sabab caafimaad jirin xoolaha qoyskeeda ayaa dhintay si lama filaan ah dadka tuulada ayaa ka baqay in ay ku dhawaaqaan ama xitaa ka hadlaan aabaha Faadumo oo ahaa nin diinta yaqaana ayaa go'aansaday in uu ka hortago waxa uu la xiriiray culummo deegaanka ka tirsan oo yaqaana sida loo baabi'iyo sixirka waxay u sheegeen sixirka ma ahan mid la iska indhitiri karo waxa laga maarmaan ah in la isticmaalo duco iyo qur'aan fara badan iyo waliba dhir caafimaad leh oo xoog leh si sixirka loo burburiyo Faadumo iyo qoyskeeda waxay raaceen talooyinkaasi habeenkii culummadii waxay Faadumo u qaadeen meel aamin ah oo ka fog tuulada waxayna ku bilaabeen duco iyo qur'aan akhris sixirku wuxuu ahaa mid xoog badan laakiin akhriska qur'aanka iyo talooyinka culummada waxay bilaabeen in ay wax ka bedelaan Faadumo caafimaadkeedii wuu soo hagaagay xoolaha qoyskeedii qaar fara badan ayaa dhimashadii ka badbaaday haweeneydii sixirka keentay iyo ninkii sixroolaha ahaa ayaa baqay in dambigooda lagu ogaado waxayna ka baxsadeen tuulada daruusta sheekada aan ka fahmayno ama aan ka faa'iideyno ayaa waxay tahay Faadumo waxay noqotay qof feejigan dadka xunna ka digto isla markaana qoyskeeda iyo dadka magaalada ku nool ay uga digtay arrimaha noocaas oo kala ah dadka sameeyo sixirku waa dhab laakiin haddii qofku uu alla ku tiirsanaado ducadiisu waa awood badan tahay qofka xun ee sixirka adeegsada ugu dambeyntiisu waa khasaaro haddii aad rabto sheekooyin sixirka ku saabsan